Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan saaxiibada qiimiga badanow kusoo dhawaada janalka Hanaan English Officials. Waxaan ahay Ustaad Maxamed Deeq. Waxaan halkan idinkala socodsiin doonaa casharadii Englishka ahaa ee aad ka barateen janalka Hanaan English Officials. Maanta waxaynu ka hadlaynaa qaybihii idiomiska, qaybtiisii labaad ama part 2. Idioms part 2. Waayahay numberka koowaad. Hit a home run. Hit a home run waxaa loola jeedaa inaad guulaysato macnaha guulaysi. Hit a home run sarbeebtan ayada ah waxaa macnaheedu tahay inaad guulaysato. Example haddaynu ka bixino, Ali hit a home run. Ali waa uu guulaystay. Ali hit a home run. Ali waa uu guulaystay. Sarbeebta labaad aynu soo qaadanayno waxay tahay hit the roof. Hit the roof macnaheedu waxay tahay qofka inuu xanaaqo. Hit the roof xanaaqid waay. Qofka inuu xanaaqo qaylo bilaabo. Markaysaa waayahay example haddaynu ka bixino, tusaalaha wuxuu noqonayaa the teacher hit the roof when the students were very late. The teacher macalinka hit the roof waa uu xanaaqay when the students markay ardaydu were very late ay aad u soo daaheen macalinka wuu xanaaqay. waa tahay numberka saddexaad ama idiomka saddexaad ee aan casharkeena kusoo qaadanayna waxay tahay take someone's life. Take someone's life inaad qof disho, yacni dilid waay. Take someone's life dilid ama qof inaad disho. Tusaale haddaynu soo qaadano, the floods took hundreds of life. The floods daadadku took hundreds of life waxay galowsadeen ama ay dileenba boqolaal qofood noloshooday dileen. Markaysaa the floods daadadku took hundreds of life waxay galowsadeen ama ay dileenba boqolaal qofood noloshoodii ayay galowsadeen. waa tahay numberka afraad ee aynu soo qaadanayno waa love is blind. Love is blind. Love is blind. jacaylku waa indhoole. jacaylku indhoolo waay. mahmahda ee sarbeebtan waxaa loola jeedaa qofka jacaylka haayo inuusan arkaynin qaladaadka iyo liidashada qofka kale oo asaga jecel yahay. yacni qofka wax jecel mar walbo waxa waaye jacaylkaasa indhoole ka dhigaya ama indhasaabaya. qofka kale uu jecel yahayna qaladaadkiisa iyo xumaantiisa ma arkaayo. tusaale haddaynu soo qaadano, I can't see why Layla like Ali. I can't see ma garanayo ama ma ogi why Layla sababta ay Layla like Ali u jeceshahay. Because maxaa yeelay he's not even a good looking. xataa si muuqaal oo wanaagsan hataa ma lahan. Ali muuqaal oo fiican hataa ma lahan sababta Layla la jeclaataan ka yaaba yani. marka qof meesha ka ag dhawaa jawaabo wuxuu yiri love is blind. jacaylka biska indhoolo ah. markaysaa love is blind jacaylka indhoolo waay. waayahay intaa ayaynu kusoo gabagabeyneynaa qaybtii labaad ee idiomiska. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulan dambe oo xiiso leh.